الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة عموما تاريخ marka laga warramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama saddex meelood oo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون sida daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dhul badan ayuu qur-aanka kaga warramayaa qisada qur-aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamayaa qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno inaynu ka qaadanno cibar inay noqoto wax lagu waaya arko cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigoo aad u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogto ah sunnadaasi waa sunna haabita bay culammadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad sama helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu fiirsanno qur-aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaadda inxiraafay qiso yacnii kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramayaa taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahannay qiso dhammaanteedba innagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno waxay idhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusuurta dambe waa tabca jadiida likitaabin qadiim bay idhahdaan haddaad taarikhda dib u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida idan bay idhahdaan waa tabca jadiida kitaab qadiimoo hore loo soo maray waayo dunida hore u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta hore u soo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay tabca kitaab qadiimo hore u jiray ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegay sunan baa dhulka tegay ee fasiiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin fasiiruu fi lardi qur-aanka intay ku soo aroortay haddaad u fiirsato aad baad u tacajubaysaa aayaad aad u tiro badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramaya qul siiruu fi lardi uma nduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسار فسيروا في الأرض يقرأ أيا كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي من إلهي هي قولدي دين كهر ريسيبا قار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كرا حيث قرا هين إن لسدول تاغم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى أممكا أن وحقورين انت بدن إيه كوا وحقورين بدن وكم دبا على مدى جرى تاريخ تكو علامة صدان مثلا وحا ما هذا الله يراهدا ودعضي قصة دعضي oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmaahda la sheegay waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay waa wadciga hadda yaala ayuu wuxuu uga qiyaas qaadanayaa dhacdo hore oo dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmaahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamid ah dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yaro koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahannahay sideedaba qiso dhammaanteed inaynu aad ugu noqonno taariikh gaal taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay مواضع العبر كان نسدح تاجنو أما يسك تاجنو درس كان ما أنت لقون دينا وحلا يدينا كور رمه تاريخ أندلس تاريخ ده سيري ساعد يبرنا أنا وشجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورين شري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيبلعبين فرشدي أندلس يوجه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى إيبيريا لورين شري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بيسي إسلامية هداي كبحضي سداد بقول تضبي سقاشن كي محرم كودي دي بالله صار آخر الملوك أبو عبد الله نكي هو يدي قبل جو تري رسائل هاي بغرطويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبو يترينيس يبكي مثل النساء قبل وكشرو وهي تلمام سعادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليدي مركي وجودن بيسيو كدقاقي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة مركي لك على الساحة ودونيه فلوس أكتر قدبوا قصرية دي سي وحيسي مركاسائل مكسود ده يبان ليري هو يدي بمركا وارد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنادات ككوبان سداد كدقيقين اللي يسيها دانو غيبيو طبعا كي سنادات بحال دقيقان وهيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم دابا هل دقيقة يكسو بيجمية مركا أدكتي تاريخ أندلس إن كجا ورنا سداد دقيقة يوحلا ميدا عموما أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سداد يصدم كي هجرية ده وحيهوسي من يسي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يماشى قبصتي ويل دلن يرى أمويين تكمدا أيا دلكي كبحصدي ولا الذي لدلي يساقي بحصدي وحو الصعدة وحو قاري ودن كاسي عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش إنك اللي بحيي دولة داسي يساقا دبو أساستي يساقا غريب أبو ودن كاتقاي وحباها يسنين لكن دولة بمدير كقدستي دبتنا دولة آد وبلارن أيو دسي دوري صدن سنة بانفليا فريا صدن سنة دوت أيو حكوميي
wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtuba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjid qurtuba oo masaajidka weyn buu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjid qurtuba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay qurtuba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh ma si tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin oo cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo alla ka cabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400 oo majalladood bay maktabadiisa ka koobnayd isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu ninuu 7 jir meelahaasi ah داديسو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي قانين اما المؤيد بالله لغه المامو هشام كامركي ميشا لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا ما عد الى لسه isaga islaanu hooyaa iyo laba nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxa isku qabsaday dawladdiiba nin la yiraahdo Muhammad ibn Abi Aamir waa nin qabiil Yaman asalkiisu ka soo jeedo الحاجب المنصور ninka la baxay weeyaan
xaajibku taariikhda hore waa ra'iisul wasaare oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo odhan jiray xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma samayn jirin boqorkun baa laqab lahaan jiray المنصور بالله وحين مقالله المقتدر بالله القادر بالله magacyadaasi boqorada lahaan jiray laakiin xaajibka iyo wasaaraddu ma lahaan jirin ninkani maadaama uu dawladii gacanta iskaga dhigay laqab uu samaystay al-Mansuur la yiraahdo isaga qabsaday dawladda dhamaanteed nimankii agtiisa soo marmarayayna uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso boqorrada looma soo galo halkaa ku jir meel buu ku xidhay bay yidhaahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray koox dumara inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan maxaa la yidhahdaa marookaanta iyo maqaaribta idinka arka koofiyaddan yara ku samaysan khamiiska rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yidhaahdaa barnaska la yidhaahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yidhahdaan dumarkaa uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaasu iska joogay ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guulaystay culimada qaarna 54 bay sheegayaan laakiin imaam dahabi 52 ka dhigaya 52 dagaal buu galay 52 qaswe uu galayba wuu soo guulaystay idan wuxuu ka dhigay wadankii andalus loo oran jiray ee islaamiga ahaa wadan aan gaalba hunguraynin agtiisa cidi soo marin aad u xoog badan imaam dahabi wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi wa kana mawtuhu aakhir as-salah وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيره وحورنا يا نيكا كان جاريدي صحي هيدويد وناقة وحي وقدم بيي أعماشي سنة جاريدي سو وناقة وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يدي waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo amaladii uu sameeyay amala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay waayaninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalix isaguna ahaa dawladii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yidhi waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyad billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyadkani qolka kaga jiray buu yidhi muayyadkana waa ha iska tago aniga ah buu yidhi khilaafadii waliyul ahdi buu sheegtay markaa بعد المؤيد بالله انه يسوي ولايه لا ولايتنا اي wareegtay الدوله الامويه اما قريشين تنا ولايده dadku nooc ma way uga dambeeyeen laakiin ninkani waa caamiri yamaniya marka ma uga dambeynayaan dadku sidii looga dambeeyay awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra'iisul wasaare inuu ka yahay nin محمد بن هشام بن عبد الجبار لا يراهدو أموية baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday
caamiriyiintii buu eriyey meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii laysku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul mu'miniin baa soo maray يعني waxaad qiyaasi kartaa marka fitanka iyo mashaakilka taagna sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul mu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka aynu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaan u babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda ay iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo Arabigii markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysa in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyne muslimka xukunta buu ahaa maantana waxa arkaya muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلدا تاريخ ده waxay dhaahdaan المستعين بالسليبيين buu ahay مستعين بالله ina ma hayne inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisi mid kamida oo سليمان كان يا هشام كيبا ولا لا كي غورغا لو خري جيري markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-fata waadih oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday maxamed ibn abi aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskureerka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen de ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaynaa aan gaal kale raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa wahay Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayay u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo xoogaaga barbarka oo haysto Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta
ودول كي يريراء جزية بحين شري وعبد الرحمن الناصر جزية سين شري ومن بعد هنا الحاجب المنصور با جزية كغاد شري نكي جزية بحين يبا انت وتقيم بي وحيد هذين وحن ربنا ينادنا لفرطه وضنكي او ماشنا لقبطه امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بالشروط شروط باندقانية شروط السبان يدين كل الدولية وما حيبا ليدي شروطات والله وانا نو دايس كسعونية لعيدا ما هيستاني وحيد عيدا مدينية وحينا كلا مركا كان ستان أنا قد دقالكو انتو السعودة بيقولوا مالك كستو الدقال كاسي السعودية بقول دينار وذهبية بانها وبقرطويضة إلى هذا عشورة مالك كستو الدقالكو السعودية دولة برشلونة إلا سيا بقول دينار وذهبية كو عيدا ما ندين سينية عيدا كان ندين سيا أسكاري كستو الدقال قاله waxaan rabaa hal diinaar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kastoo dagaalka gala hal diinaar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo hadii aynu jabinno khilaafadiinaasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri مدينة سالم لا يراهده مدن كيو فرطي عبد الرحمن الناصر أما عبد الرحمن الثالث إن كان لورجري دول كيو فرطيها مقالة أنا المسلمين تلاقي سووا ريتشيو أنا قاعد تلاقي ليه أفرطا شرطي هدا أقبل إنسان ويدين للدولية بورتويا دو مالتي بقول جنيه وذهبه بقول دينار وذهبه عسكري كاستو عين كاسية ولي بقى askarta wadankii wuxuu cilaamiyeen nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariya tatawucaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta hal gini baa la idin siinayaa dadkiiba askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkiiba intiiba wuu ka aqbalay waxay yidhaahdeen intaaba waa ku saxeexanay in la duul intii markii loo saxeexay ayay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Suleymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-fatal waadix ba makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawlad caamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu yiri war kaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadee nimankii amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريغا ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Suleymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay fatal waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Suleymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay fatal waadix ayaa meeshii qabsaday Suleymaan ibn al-Hakimna waa leeriyay galadeegsi bay baratay Suleymaan ibn al-Hakim isna wuxuu yiri bal malik qashtaala dib ugu noqo hagaal aan aduguna dib u laabto wuxuu tagay alfansihi ka talin jiray qashtaala ee berigii horena saaciday mahdigii la riday maxamed ibn hisham ibn abd al-jabbar ninkii meesha kala qaaday waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad dee mar damaan rabnaa inaad nala duusho saasmiyaha bal saddex cashay suga buu yiri saddex casho hal ay sugo saddexdii cashay uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaale haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu u tagay uu nin u diray wuxuu yiri halkan waxa ila jooga Suleymaan ibn al-Hakam oo raba in la soo duulo waxoogaana de ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siinaysan darabtaan inaan la soo duulin waxa la yiri waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado
ha soo duulin nimankaa ha soo raacin boqorkii qashtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala dooransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweyn ee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalacaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamma dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkiibuu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eryanisay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayeen waqti yar kadib ayay qoladii barbariyiintii ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedha maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaan kaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiili u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtadaa billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaala badan baa dhacay kullu haadaa maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay marka ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abulxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd ee andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibnuljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yeman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo waa ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo balorosiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badane waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dowladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ay culammadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intanna ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xooggan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dowladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 kilomitir isku wareega inay tahay yani waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rul ahaan marka la eego Soomaaliya oo 22 dowladood noqotay qiyaas reer waliba intii yareeyay oo haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een banu abaad niman la yiraahdo oo ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman banu ziri la yiraahdo oo qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday banu jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday bani al-aftas niman la yiraahdo berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow bani dhanuun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow bani Amir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo banu Hud oo yana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yar ee arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haystaa waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haystaa ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaaleed ee markaas ka xoog waaweyn mid kamida uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مغاعيدا تراد بدن لمعتصم يا معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله مدوى لبا لقب كيما دحتويد ولا هان جرتay buu la baxay waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la baxeen wa alqab mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed oo aan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhir yahki intifakhan sawlat al-asad بعض الروايات صورة الأسد بينها واسدي بيدين على هذا عري جير اللي باح سككعيه عري هدو جير سككعيه اللي باح نقر ما يوم وبصدقون انت جير كسككعسي جير اللي باح سوى كيسي بيلا مدين يعني الدولة ده معها وحب لما وقت كان وحي تاريخ الله يقانه عصر ملوك الطوائف أفر بقول يلا بيا لباتنكي إلا أفر بقول يسدحي سديتكي بالسعودي أفر بقول بيا لباتن إلا أفر بقول سدحي سديتكي ووقت إلا بحين مركب ملوك الطوائف ملوك الطوائف قيبها إنه صار شيء لباتنية كل دو وحي عان كن نقدين
kow dad taraf jecel bay ahaayeenoo nimcaystay wadanaad u lacagaystay oo nimcaysta baa la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiya wax la cuno un laga shaqeeyo cuno un laga warramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaad waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yaryar oo dawlad waliba colka ugu weyn ay leedahay uu yahay kan yara kale u jaarka reer hebela meesha yar ay haystaan waxa soo baxay bay yiraahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuq iyo wixii la mid ah waxyaabaha aadka u foosho xun la soo korayna waxa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mid ah dawladii gaalada ee roona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha ka sii foosho xun la meesha tan ka soo baxay waxa ka mid ah dawladaha yaryar intooda badani waxay bixin jireen jizya si ay u jiraan yani waxa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiga jizya qaada kuwan iyaga jizya bixin jiray waxaana la siin jiray maliku qishtaala iyo boqorada kale u dhow ayaa jizya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba waa cashuurta ku soo dalaciya lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinaya nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryar oo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleed ku tirsan iyadana intuu lacag siiyo yiraahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayo dhamina waa magaalo aan kan ka riixdiyo magaalo kaas ay iga riixdo حد بيقعد ابن حزم الأندلسي عالم كي لورن شري ويراهضه وراد اللاذعة والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويداهدو إلهي بان كل دارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية عبادة الصلبان كرس كينا يعابدان إن الرمود وقف ضدان يا نار أنتوا كلا صعونيسو وإسك عابد أيام بيدي وضعنا ما ضحضا بيدي هدي ما أنت الله يدادو كرس كعابدان رميه سوا وكلا سهلانان أيام آد بيو صبير أيام بيدي ساسي درادات بيدتك مسلمين تا حرم كودي يا دمر كودي يا أبنادودي يا رجودي با iyagoo maxaabiisa loo qaadaya buu dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya buu leeyahay iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaqus laga dhex taagaya buu leeyahay ilaahay dhamaantood ha nacdalo oo seef suyuftiisa kamida Allah ku itixaamo buu ku gabagabeeyay waa wadaad cadhooday waxa ka muuqata yani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yaryari waxay ku caan baxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladdii sayri inaanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xigay muslimka inuu col leeyahay ka foge kale gaalkaana inuu lacag siinayo ama jisye uu bixinayo casriga caynkaas ee andalus dhibtaasi ay haysatay sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd hadana taariikh islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn abd al-barr noola 463 kii buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noola abul walid al-baji 447 kii buu geeriyooday waa waqtigu noola ibn hazm 456 kii buu geeriyooday ووقتكم نولا ابن حيان أفربغولي سجالي لحدن كيبو جريودي ووقتكم نولا ابن سيدي أفربغولي شني سديتن كيبو جريودي وحو علماء دي وجبنا تاريخ ده يتلمامته عصر طوائف بين نولاين ملوك الطوائف وقتها كره يتلينيه بل الإمام أبو الوليد الباجي باجدا لون إسبانيا وباجا ومقالة يروكو الله برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورن شري مركو أركيد دول كان يرير مسلمين تيسي وكلادات سينيو دبعتها هيستا صدن سنادات بدح سعودي يسقول مدوبة صدن سنادات بالله مقال كستو كترسنا مميل كستو أندلس كمدا صعد بو كمري يسقول كل واقعي دت كان مسلمين تيني مدوبان الله يسوي معده وكابن حزم
kitaabkiisa naqat alcuruus la yidhaahda nuqat alcaruus kitaabkiisa la yidhaahdaba wuxuu yidhi fadiixatun lam yaqac fi ddahri calaa miliha waxaa jirta buu yidhi fadiixo aan taariikhda bini aadamku hore u soo sheegin buu yidhi 4 rijaal fi masaafati 3 ayaamin tasama kula waaxidin minhum amiira almu'miniin buu yidhi 4 nin oo masaafo 3 maalmood loo kala socdo mid waliba intuu meel yar ka degay buu yidhi uu sheegtay amiirulmu'miniin inuu yahay mu'minkoo dhan buu amiiru yihi 4 nin mid waliba mu'minkoo dhan amiirnimadiisa sheeganaya 3 casho socodaba lagaga tallaabaa meeshay degan yihiin ninka caadiga maalintii 40 kiiloomitir buu socdaa 3 casho waxa laga yaabaa 120 kiiloomitir in la socdo waa 120 kiiloomitir dhul ah oo 4 amiirulmu'miniin joogto oo nin waliba meel ka talinayo oo khataba lahum biha fi zaman waahid oo 4 tababa yidhi waqti qura khudbada jimca mid walba amiirulmu'miniin inuu yahay loogu ducaynayo oo khudbada lagu akhrinayo buu leeyahay markaasuu wuxuu tilmaamay 4 kuway kala ahaayeen mid waa khalaf alxusari buu yidhi oo ishbiiliya ah cala annahu hishaam almu'ayid waxaa jira hishaam almu'ayidkii oo culamo taariikhda qayb ka mid ay qabaan inuu waqti hore dhintay ayaa waadanba uu nin qaadiyo meel haystay uun baa ninku yidhi waxaan arkayba hishaam oo masaajid yar oo halkeena fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war hishaamkan yaa garanaya inuu ninkani hishaam almu'ayid yahay mid la yidhi shaqaalihiisii baa la raadiyay waaba isagii baa la yidhi dib baa loo magacaabay isagoo ah boqorkii almu'ayid billah beri horena taariikhdu qoraysaa inuu dhintay markaasuu wuxuu leeyahay khalif alxusari baa ninkan la odhan jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitabaaba boqornimo loogu khudbadaynayay ka labaadna waxaa buu yidhi maxamed ibnu qaasim ibnu xamuud oo jasiirat alkhadra meesha la yidhaahdo marka la soo galaba andalus xagga hoose ee tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad ee la yimaado aljaziira alkhadra meel loo yaqaano moxamed ibnu idriis oo isagana maalqa magaalada la yidhaahdo looga khudbadaynayay iyo idriis ibnu yaxya oo shantarin magaaladan la yidhaahdo yacni wuxuu tilmaamayaa ibnu xasam inay ceeb tahay aan la aqbali karin in 120 kiiloomitir inay yeeshaan 4 amiirulmu'miniin inay ka soo baxaan waxaa gaadhay waqti andalus taariikhdeedu runtii si tiro badan ay leedahay waa waqti marar badan aad soconayso akhrigeeda ama ka warankeedu uu dhib badan yahay waayo markaad maqasho tulaytila dhicitaankeedii oo kale tulaytili waa caasimadii berigii hore Spain looga talin jiray ee muslimiintu markay furteen caasimatul qawt markii hore ahaan jirtay athaqr shimaali bay culimada taariikhda ku tilmaamaan malik alfonso sadis markuu qabsanayay niman kale oo muslimiina kula duulayay waa dhul muslim oo la qabsanayo oo niman kale oo muslimiin ay kula duulayaan cidda qabsanaysaana uu yahay malik qashtaale taariikh islaami hore lama arki jirin in nin muslima uu ku soo duulo kooxo kale oo muslima oo waxa loo qabanaya uu yahay nin gaaleed inuu qabsado meesha tan bal malik qashtaale intuu kibray markaasi waa alfonso sadis isagoo waagii hore aabihii markuu boqortooyada ka dhintay ee 3 nin oo walaalaha bay ku qaybsadeen mid baa dabeetana labadii kaleba soo eriyaday oo meesha ka qaaday alfansahan isagoo qaxoontiye buu talaytile yimi talaytilu joogi jiray boqorkii talaytila soo dhaweeyay meelahan oo dhan buu tustusay wixii oo dhan markuu soo eegaaga uu noqday ayaa walaalkii dhintay markuu walaalkii dhintay boqortooyadii isaga dib loo siiyay ninkii halkan qaxoontiga ku ahaan jiray ee dib loo diray ee meeshii tagay meeshii buu dib ugu soo duulay markuu meeshii qabsaday alfansahan madow Afrika joogo kala siisay weeyaan meeshuu qaxoontiga ka ahaa ee uu shalayto qaxoontiga ku ahaa ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaadhsiiyay markaasi xad uu gaadhsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhdu haya maasida markay ka waramayaan maasida qaarkood yani culimada taariikhda ka mid waxay warinayaan inuu soo diray nin ka mid ahaa wasiiradiisii oo yidhi lacagtan la ii siinayo jisyada si fiican u soo baadh lacagtu dee waxay ahaan jirtay dahab iyo fida marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo wax dee macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii
almuctamid billah kii la odhan jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yidhi boqorkii arrin kaluu isoo faray waa boqorkii yaraa qashtaala haystay waa maxay buu yidhi arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yidhi waxaa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tale waxaa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka qurtuba waa codsi uu soo qortay maliku qashtaala boqorkii almuctamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulayse inay ku dhasho مسجد قسطالة مسجد قرطبة ساعد كوين قرطبة يعني واحد تنكين يا واحد ويان ومركو الدرامي دتك كرينا دت كلالومي oo liita oo midba ka ku xigay iska eegayo oo midna aanu kaligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii Tulaytile loo oran jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu waxoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tiro badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqoradii yaryar ay isu yimaadeen oo yidhaahdeen war maxaynu samaynaa waddankiina difaaci kari mayno markaasay yidhaahdeen aanu nasriga aan soo waaridno war aan caalamul islaami dib u eegno shimaali afrika ama shimaali afriqiya north africa dowlad cusub ka dhalatay oo dowlad almuraabitiin loo oran jiray oo markaas uu ka taliyay nin salafi ah oo loo oran jiray Abdullah ibn Tashfin Yusuf ibn Tashfin la yiraahdo uu ka taliyo waa oday 80 jira oo faraska fuushan hadana dowladii ninka iska talinayay bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana hadana iyagii baa dhexdoodii shakiyay waxay yiraahdeen hadduu inaga ka ciyaar muyna qabsadaade diiba uu ninkan inaga riixaar mu isagu meesha qabsadaa maalintaasi waxay ku tilmaamaan almuctamid billah ibn Abbad kaasi go'aan adag buu maalinta qaatay wuxuu ku yiri wallahi la nar'a inaan geela ku raaco saxaaraha ayay dhaanta buu yiri khanziir raaco يعني إنه نكاس ما شبه سوق قبصده وقال يدر طبعا كدور بداية إن قشطالة أنتوا يقبصده خنازيرته اللي راعية بوليه دبتنا وحي قاتين قوان كا إن مرابطين الله يرده يوسف ابن تاشفين يا عيد مدي سبايمي وقعد عن كزلاق الله يقانا يا دعدي ووقعد تاريخ ده وقعانه دبنا له شبيي qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaas dib loo jarbiyay isaga darqo ku baxsaday ciidamadiisa dhamaantood meesha ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsan mar rabo inaan balbalaadhiyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaaco dabeetana uu noqday yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweynaha ay samaysato waxa iska ilaalinaysaana ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo waligiiba magac dawladda sheegto lacag ka samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci karin ama waxba iska celin karin waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlad ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeeriye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaasi yar meeshan ka talinayay oo midba ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqashaan yawmutiin kala sheego nin boqorada kamida ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumar ah oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobadaas oo yara batalaqsado dabada u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan uu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin talow daaraha dhaadheer mar uu yaa fuula buu isleeyahay
kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buuraha marun kora buu isleeyo soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini'aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kaluu raadceeya uu arkaa inay raaxa tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yidhahdaa dad ku dhadhow baa shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxa waa kuwa culimada taariikhdu sheegaan inay bari bay islaantiis qabteen markaasay tiri wallahi ma raaytu minka khayran qatu waligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yawmutiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay oo la xidhay magaalo yaroo Morocco ku taala ayaa lagu xidhay magaaladaas ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxa kamid ah maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyay meeshii dawladda kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxa ku dhacday maalin ciideed buu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruuf la yaqaano islaantan uu yoomuteeka ku taamayay oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa qortooyadii iyo nimadii waxa ka dambeysay qaxoontinimadaasi isla wax xabis ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe caruurtiisa u timo gabay aad u macruuf u tirinayay oo marka dambana uu ka gabayayo cagaha hablihiisa buu ka gabayay uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yani maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay aad u tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu oranayo yani ninka iga dambeeyo adduun yani farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabalaantaas gabay aad u tirinaya waxaan uga jeedaa mayla ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan may ahayn dad dacfi kale ka jira may ahayn laakiin waxa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhaxgalay iyo kuraasidaas yaryar la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dawladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu soo nidhi taariikhdu waa beejaj maalinba bog la rogo la akhriyo bog kasta aad joogto waxaad arkaysaa bog hore taariikheed oo la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200 kun iyo 500 kun inta meel fadhiistay yiri dawlad baanu nahay